headline-ka kaga qoran jaraa'idka maanta jaridada maxaan ku lahaa haatif ee maanta oo ka soo baxday magaalada Hargeysa ee magaca naanaysta ku caanka Tabaarik Maxamed Ducaale la yiraahdo walinay qaraabo yihiin madaxweynaha oo ma xaqu sheegay oo kaliya heela dhalay muddana loo rabeynayay shirqoolkan sida aan baaritaankeega ku hayno ma aha mid loo dacal saarayo beesha aanu ka soo wada jirnay isagii anagu laakiin waa nin ku jira gacan cadow oo maleegaysay shirqoolka arrinkani waxa cad guriga ay ku noolaayeen ee saldhigga duulaankani ka yimi inuu ahaa wasiir ku-xigeenka amniga Cabdilaahi Abubakar ee fiirgaraynayay hagay siinayay maxaan ku lahaa qarashka shirqoolka oo uu gacan yaro hoose ka ahaa shirqoolka ayaanu ahayn gacanta sare aan isu kalahayn camiilnimo ay ahayd waa nin wasiira xil haya ma beelaysmaye ciddu u aanoobayaa waa madaxweynaha uu maanta ka tirsan yahay kaambanadkiisa shirqool qarsoomaya maaha mid gadqaryana maaha wasiirka labaad ee madax banaanida kiiskan baaristiisu ay nala gashay ee maxaan ku lahaa ay ku jirto waxayndaabka wasaaradda informationka oo ahayd barta abaabulkeedu uu ka socday Cabdilaahi Cakusi hirkaasi halkuu u sii bixi karana waanu haynaayo maalintay nala gaadho baaritaanka ay baarka la baxdo mid aanu sinaba uga gabanayno maaha anigu waxaan mas-uul ka tirsan golayaasha qaranka Soomaaliland